Bismillahi Rahmaani Rahiim. Markii akoonka la soo bandhigayo waxaa la isticmaali karaa habab badan oo akoonka lagu soo bandhigo. Hab ka mid ah hababkaas ayaa waxay tahay in la isticmaalo qolfoofta ta. Haddaba qolfoofta ta wuxuu ka kooban yahay 3 qaybood: qayb sare, dhinaca midigta iyo waliba dhinaca bidixda ah. Qaybta sare waxaa loogu talagalay in lagu soo bandhigo akoonka nambarkiisa iyo waliba akoonka magaciisa. Akoonkaas oo loo furayo qolfooftan ta. Beside waxaan loogu talagalay in lagu qoro lacagaha lagu debit gareynayo akoonkaas. dhinaca kale oo midigta oo loo yaqaano credit side amba dhinaca creditka asagana waxaa lagu talagalay lacagaha lagu credit gareynayo akoonkaas in lagu qoro. Haddaba waxay ku xiran tahay akoonka qolfooftan ta'da loo furayo sida uu u dhaqmayo. akoonada qaar ayaa waxaa laga yaabaa in ay debitka ka ziyaadaan, akoonada qaarna waxaa suurtagal ah in ay dhinaca debitka ay ka yaraadaan. sidaas la mid ah akoonada qaar waxaa suurtagal ah dhinaca creditka in ay ka ziyaadaan, waxaa suurtagal ah akoonada qaarna dhinaca creditka in ay ka yaraadaan. hadba waxay ku xiran tahay akoonka iyo waliba normal balancegiisa amba qaab dhaqameedka akoonkaas ayay ku xirnaa doontaa.